السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا مخلصان وأبدنا ولا لها أتكينا تيريو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وإن السلام يا صباح وناكسن إن فيديو قد مركا قدالك داود وحان يس إن ما شاء الله والقود الجراه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. again إن أسلح الله أمليناي لكن وأركا إن دمانتين هرت وإن السلام يا أنتو كجرتو الحمد لله إلهي نبدو نقصو كعيي وعافمان نسيي وحدنا مركل نقوكل نسيي إن قدك dadkii aan hore ugu jiray iyo dadka kale inkastoo hadeertaan maalintii toddobaad ee ta magacyadiina inta maaragtay oo regular ku ah oo casharka soo gasho maskaxdeedii maalin kasta gashaa waan xasuustaa magacyada maaragtay u badan oo casharka dadka hamiga leh dadka raba inay dadaalaan dadka raba inay meel gaaraan waa u wada jeedaa alxamdulilah waana wax fiican aan ku farxo markastoona taxigayga aan dib ugu noqdo markaan bilaabo waxaan arkaa anigoo adinkii oo mar hore imaqasheen laakiin anigii aanan maarkino oo aan ku hayo ma imaqashin marka taasna waxa waaye qaladka oo technology-ga waaye kana si fiicnaan leh life fiican casharada marka walaaleel waa in salaama horta alxamdulilah anigii familkayga kulli ilaa maaragta mahad iskale adinkana kulay waxa idin rajeynaa sidoo kale hadii qof xanuunsan ama dhibaato ay jirtana ilaahay maaragta hana kor qaado inta muslimiinta meel kasta ay joogaan ilaahay nabadgelyo ku siiyo shalay casharka hadaa la socoteen waxa ka hadlaynay su'aalo iyo jawaab shalay toole inta ku jirto oo xasuusato su'aalahaasna waxaan ka soo qaaday dadkii maaragtay oo masajada khayr allah si ii soo diray aad u mahadsantihiin inkastoo aanan kulli ka wada gaarin masajada aad ay ugu badnaayeen laakiin waxaan ka soo qaatay wixii aan dhihi karo aad baa loogu baahan yahay labadii aan ka soo qaatayna waxay ahayd go'aan gaaritaanka hadaa ratid inaa wax baratid iyo midda kale aan ka soo qaatay waxay ahayd in negative-ka maaragtay oo markaad nafsadaada markasta hadal kugu soo noqnoqdo hadal qof hadduu kugu dhaho sensitive u noqotid oo wax walba yacni maskaxdaada xumaanteeda ay soo laalaabato taasaa ka hadalnay marka maantay mindset-keenii oo for my Somali community maanta horta waa maalinteeni toddobaad hadaa ila socotiin haddaan saxsanahay maalinteeni toddobaad waaye waa in maaragtay aan farxadeeno anigana waan idinla socon doonaa insha allah ilaa 21 beri diyaara idin ahay in aan sii wada casharka hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala nolol nagu gaarsiiyo asagaa maaragtay allah awooda leh laakiin aniga dadaalkii waa idinla taaganahay waa ikan waana idin maaragtay intaa idin joogaa insha allah maanta casharkeen wuxuu ku saabsan yahay maadaama aan u arkay dadka badankooda inay ka hadlayaan fikradda maaragtay la dhaho negative-ka inuu kusoo noqonayo maskaxda ay tahay yacni midda waxa waa ugu dhibka badan sababtoo ah waxyaalo badan ay gaarsiisaa casharkaygana badankiisa wuxuu ku socdaaba maskaxda saa u kobcin lahayd soo maskaxdii ay see ku kobcaysaa haddii uu kaa buuxo maaragtay tashwiish carabi hadday dhahaan ama uu kaa buuxo wax la dhaho recording camal kugu soo laalaabto oo negative ah kugu jiro iyo mid ha ahaato aad dadka banaanka maaragtay hadalle kugu dhaheen aa u qaadatay personal ama adiga laftigaaga midaa abuuratay oo aa u aragtay nafsadaada ay ka imaatay nafsada midda ka imaadaan ugu daran daniga nafsada ka imaado nafsadaada miday abuuratay marka haddaad tahay qof wax raba inaad gaartid wax barasho rabtid ama nolol adduunka ka gaartid ama business aad maaragtay furatid sidee marka aad taas uga bixi kartaa damage-kay leedahan ka hadlayaa si uu u dareentid xanuunkuu leeyahay si aa u dareentid inta dhib uu kuu gaarsiinayo marka hore inaan kaa baqiyo sababtoo ah nafsadaadana xaq kuma ahan adigana xaq kuma ahan in aad luubkaas ku jirtid noloshaada saas qof wax uu ku dhahay ama hadal ma aragta oo maskaxdaada ay kuu sheegtay maskaxdana saan kaga soo hadalnay ibni aadanka way ku cayaartaa mindkan wuxuu u badan yahay in waxyaalihii waataa dhahay subconsciouskaasa marka waxyaalihii qashinkii wado waxyaalihii aada u baahneen wixii lagugu dhahay uu kugu soo celcelinaya marka ideyadeeda dhan oo casharkana u keena waxay tahay in adiga maaragtay controlkeeda aad noqotid
maadaama subconsciouskaas uu wax walba xareeyo intaad xumaanta ka bedeshid wax wanaagsan aad gelisid aad ku isticmaashid waxbarashadaada aad ku isticmaashid inaad ummadda ilaahay dhiirigelisid aad ku isticmaashid familkaaga iyo inta dadka aad taqaanid oo adigana wax aad ku baratid nafsadaadana kow ay kuu anfacdo marka see ku samayn kartaa haddii nafsadaadi marka aad tiraahdid qof walba oo wax igu dhaho maskaxdeedii kama baxayso maskaxdaadana waxayse uga baxeenin adiga u ogolaatay oo aad maarkino waxaad siisay waqti damagekeedina uu kugu batay laakiin haddii aad maaragtay aad iska bixin weysidna hal dhib aan kula wadaagaa today ay kuu geenayso qof walbana taas ibni aadan ah wuu leeyahay wuu ku dhashay waa maaragtay qof aan ibni aadan lahayn oo haysan ma jirto ma laga yaabaa meel inaa fadhidid fiiriya tii negativeka maahayaa in adoo meel fadhiyo mar kastaba noloshaada intaad joogtid age kastaba ahaaw qof weyn ahaaw qof yar ahaaw maadaama maskaxdaada ee shaqeynayso wixii 6 jir ka bilowda ama wixii 10 jir maskaxdaada way develop gareysay garashadaadii maasha allah waaye ma istiraahdaa wax aad niyadda ka rabtid inaad baratid ilaan qof walba wuxuu leeyahay goal uu leeyahay ma idinku jiraa hadda iisoo qoro wax niyadaada ay ku jirto oo mar walba runta kuu sheegto oo ku dhahdo waxaasaa rabaa inaan gaaro waxaa hamigaasaa leeyahay sax inaan meel ma aragta umu maasha allah ha hamigaasaa rabaa inaan gaaro meeshaasaa rabaa inaan ka baxo laakiin haddana cod kale ma kasoo kormaraa codkaas kale oo ku siiyasaayo oo ku dhahayo meeshaas ma gaari kartid ma qaban kartid adiga yaa tahay yaa isu maleysaa codkii uu madaxu kaa tumo codkaas maxaa abuura marka codkaas waxaa abuuray maaragta malada tirada badan iyo negativeka tirada badan aa qaadatay marka aan walaaleel waxa idinkaga degayaa mar waxaa dhici karto haddii codkaas uu maaragtay oo negativekaas aa maskaxdaada u dayso uu kugu bato codkaas oo gudaha ku jiro ina voice la dhahaa oo ilaahay kugu abuuray oo ilaahay garashadeeda ku siiyey oo markasta xataa xumaan ama aad dhib sameynaysid ku xasuusiso oo ku dhahdo ilaahay u laabo oo ku dhahdo wax qalad ku jirtaa sababtoo marar waxaa dhacdo ina istiraahid okay qalad baan sameeyna ama wax qaladki laakiin midka wadnaha halkaas ka iimaanaan been ba sheego gudaha uu ku jiraa markastana waa midka human being naga dhiga ibni aadanimadeena marka waxaa laga yaabaa inaa wax qalad samaysid wax diinta aan ogoleen aad samaysid wax nafsadaada caafimaadkaaga qalad ku ah oo dhib ku aad samaynaysid markastoo aad samaynaysidna voicekaas codkaas uu ku dhaho mis ogtaa waxaa samaynaysid mis ogtaa qolkaa ku jirtid mis ogtaa dadkaa la hadlaysid mis ogtaa mis wax kuu taraay waa kan codkaas waa codkana nooleeyo laakiin haddii negativekaaga uu bato oo hadallada negativekaaga kugu soo noqnoqonayo oo qof walba wax kuu sheega personal u qaadatid codkaas wuu kaa dilaya codkaas maalinka dambe wuxuu noqon doonaa cod aadan arkin ilaahayna subxaana watacaala wuu nooga digay because codka keli rasuulka xataa sallallahu alayhi wasallam wuu nooga digay codadka waxaa waaye oo nafsadeena na ilaaliyo maxaa la dhahaa wax walba aan sameynayna nala socdo marka negativeka wuxuu leeyahay wax damage weyn dadka waxay dhahaan marka xanuunsan tahay dhakhtarka tag mar walba laakiin kan xanuunka dhakhtarka u baahan waa midka negativeka saa ku bixin lahayd aa u arki lahayd adduunka wax walba oo kaa hor imaado inay challenge yihiin aa hore u socotid aa protection ku samaysid ina voicekaaga gudaha ku jiro sababtoo ah waxa keliya oo adduunka aa ku hormari kartid waxa keliya oo kula sheekaysta nafsadaada waa taas dadka maxay dhahaan waa inaa yeelatid maaragtay laba qof xaas ahaan ama qof kuu sheego ibni aadanka inay wax kuu sheegaan ama niyadda kuu dhisaan ama waxaa rabtid oo kugu waaniyaan waa 2 maalin 3 maalin xataa ma gaarto waayse u gaaraynin haddii 2 mar ku dhahaan mar saddexaad ma ku riixi karaan laakiin midka voiceka gudahaaga ku jiro wuxuu ogyahay waxaa rabtid wuxuu ogyahay wixii qalad ah wixii fiican uu kuu ogyahay wuxuu kuusoo tiiraya signal kuusoo tuuraya wuxuu ku siinaya tusaale ahaan wuxuu ku tusinaya in yani meesha taaganta meel qalad ee tahay marka walaalayaal aniga waxaan dhihi lahaa waqtiha isaga qaadin in negative kugu soo noqdo qof ibni aadanna ha ka baqin allah subxaana watacaala ka baq qof ibni aadanna ha isdhihin ku raali geli noloshaada maanta meeshaa fadhidid and you never know waqtigaaga inuu waqtigii uu yahay hadda right now xaadirkaa uu yahay wax walba aa u baahanta adduunka intaa qabsatid haddaa qabsan kartaa now
laakiin haddaa berri isu dib dhigtid ama aad tiraahdo qofka ila nool qof ibni aadan xataa dush aad ka saartaa dhaad qofkaas ila nool qofkaas maaha qofka wax baranaya oo noloshiisa wax u qabanaya waa adiga qofkaasna berri laguma weydiinaa aakhirada xataa laguma dhahayo qof hebela idib dhigay hebela niyad iga dilay hebela wuxuu dhan meel ma gaari kartid hebela waxay tiraahdo geed ma ka boodi kartid no wax walba gacantaada ku xiranta adaa qaban kartid adiga decision gaari kartid go'aan yes dadka kula dhashay ama dadka American oo aad family wadatiin aad wada nooshiin talay kugu leeyihiin laakiin haddii ayagii ka war hadaladooda intaa qaadatid intaasoo sano meel soo fadhiida aad tiraahdid hebela niyad iga dil aan hore uma socdo hebela niyad iga dish aan hore uma socdi subconscious kaada marka taas ka dhaadhicisa way kugu soo noqonay mar kastana taasi ku sheegaysaa waxa ku leedahay wax ma gaari kartid meel ma qabsan kartid laakiin hadaa intaas ka bixisid oo aad dhageysatid mid raaliga ah oo nafsadaada oo kula rabto wanaaga oo right now waxa ogahay intiina wallahi soo gashay 100 iyo waxay dhageysanaysaa 68 oo aniga aan ku jiro waxa u soo gashay halka ina maanta wax qabsatiin waxa u soo gasheen in aad maaragtay nolosha ama adduunka ina meel ka gaartaan u soo gasheen marka waxa idin dhihi laa walaalayaal waqtigaas ka qaadina ka bilaabo right now sababtoo ah wax walba horta waa inaad ku noqotid grateful oo ilaahay ugu mahadisid waxa awoodaa mobile ama waxa awoodaa laptop ama meel kasto aad ka soo galaysid waqtiga xataa aad ku dhiminaysid caafimaadka xataa at that moment aad qabtid caafimaadkaas ilaahay uu ku siiyay oo aad ku soo fariisatid aad ku daartid kan waa waqti waana nimco rabbi kaga faa'iideyso ha isdiganin inaa wax ku baratid noloshaadana qofna ha saarin dusha ha ka saarin sababtoo ah qof si kasta haduu kugu dhaho qalad ma lahan adiga qaladka iska leh qalinkan saana idin ku dhahayo waxa iga keenaa the truth ina idin sheego sababtoo amaantay dadka inta badan aan masajidooda akhriyay wallahi waaya waxa igu soo dhashay waay qof dhan aan noloshaada u siinaysaa waay qof dhan aad kaga sugaysaa inaad maaragtay ina asaga raali gelisid oo aamustid calooshiina cuqdad aska gelisid cuqdadiina xanuun kugu dhaliso xanuunkiina uu markii dambe kugu noqdo ina weliga Allah sariir ka kicin xanuunka medical kugu dhaco in cuqdadaas laftigeeda ay xataa dhibaato kugu geysatay skin colorkaaga xataa dhibaato u geysanaysaa ay jirkaaga sababtoo ah wixii gudihiina runtii ka rabtaa oo waxa isleedahay ina meeshas gaara rabaa ina waxa qabsadaa rabaa ina kan sameeyaa rabaa madaxiya saas leedahay gadaalna cuqdadii waxa kugu jiro xanuunkii waxa isleedahay qofkii dusha saarsa qofkaas wadnaha ka saar qofkaas waxna kaama joojin karo adiga iska joojin kartid adaana meel isgaarsiin kartid laakiin bariha ka shalaynin dadka waxaan la hadlayaa walaalaha negative-ka yeesu ku dilanin sababtoo ah kulligan ibn aadan ahay aniga idin la hadlaaya hadii nafsadeeda experience aanan soo marin saan idin lama hadleen hadii aan arkin marka hore wuxuu dhibaatadu leeyahay isku haleynta ibn aadanka isku haleynteed ugu weyneed wax ay markii hore waxaan soo saaran jiray qalbiga yaa ilmaha ku heen doono okay hadii aad tiraahdo qofkan ilmaha yahay wax waan barana kan waxaan ka soo bixiyay nolosheeda dhan limited belief in yani aniga is aaminsiin inuu darbi horteeda yaalo ila aniga aamin in darbi hadaa aamin darbi inuu horteeda yaalo darbiga yaala hadaa aamino wax darbi horteeda yaali kar ma jiro wax walba dadaal juhdi ay leeyihiin dadaalkaas aan dadaalo meel waa ku gaaraya maalinka go'aankaas gaari lacag meel iga timaad kala sheeg inaan ku maxaa la dhahaa qarash isgaliyo in markuu maalinku uu ninkeyga joogana aan ku dhahay ilmaha hadda maanta yahay maalinkii uu joogina qof muslim aan raadsado ama qof aan dhaho okay hiya ciyaalkan yahay labadan saacadood aan soo barto inta kale soo ma ahan gurigeyga la jooga buugtaada soo qaada akhriso dadaalkii marka aduu kugu xiran yahay ama hooyo ahaw ama aabba ahaw waxa idin dhihi lahaa iska bixiya limiting beliefkaas oo ku soo celcelinaa waxa waa darbiga adiga hortaada dhigtay oo isleeda anigi darbigan hasaan iyo sidee ugu mara sidee ugu qof ka leexin kar mal adaa iska leexin kartid darbiga oo hore u socon kartid marka walaalayaal insha Allah biidnillah karim casharadan waa noo socon doonaan laakiin limiting beliefkaas maskaxdaada ka saar nafsadaada aamin adiga hadaada nafsadaada aamin cid ku aaminaysa male ha ka sugin dadka kale inay ku riixaan adiga isriixi kartid adaa meel isgeyn kartid adaa hore isu wadi kartid adaa noloshaada taqaanid gudaha hadda maanta fiiri qofka kula nool ama aniga hadda kula hadlaayo gudaha wax ku jira ma ogi Allah bisa og kow Allah subhanahu wa ta'ala og labo
وحي يعني ما أنت نلاش فيريا qof walba horta ilmaha yarka ka soo bilaw marka weydiisa aad tiraahid maxaa rabtaa in adduunka ka qabsatid waxbay ku sheegayaan waxaas ay ku sheegayaan intee ka keenin niyadda waa gudahay ku jirtaa gudahay ka timaada marka hadaa gudahay wixii ku haysatid maantay nasiib aad leedahay hadii hadda still hadda naaw ku haysatid gudaha oo san negative kaas waxba ka gaarsiinin ha iska dilin hore u soco nafsadaada kor u qaad ogeysi is okay dheh yes dad hadallo way ugu dhahen waxa dhibka ugu daran waxa waa niyad jabkana ummadeena way u badan tahay Soomaalideena kelima ahan adduunko dhan waaya qof walba hadaa wareysatid wuxuu ku leeyihiin qaara wuxuu ku leeyihiin waalidkayga hoos ii dhigay waana run been ma taas wuxuu ku leeyihiin waalidkayga hoos ii dhigay waalidkayga markaan ku dhaay waxa aan qabsan karaa ida adiga intee gaaraysa ayagoo xataa ula jeedin laga yaabo inay ula jeedin ay ku dhahan intee gaari doontaa ereygi intuu aadaya marka subconscious kaayo yub ku dhahay wuu kugu xareysmay haddana qof kala aragtay asxaaba yeelata asxaabtaadi maada dooranin waxaad dooratay asxaab sababtoo asxaab ma doorin kartid oo reed cuqdadiya wixii kugu jiro waxa ku soo aadaysaa wixii dadkii maaragtay oo adiga kula midka ah ama dad oo u dhashay inay negative ay noqdaan qofkii kugu soo aaday qofkiina haddana waxa ka sii qaadatay GPS kala ka qaadatay oo in aad meel gaari karin ama qofkii uu dib ku fiiriyo ku dhadana gaarta xagee u socotaa ama carruurtaana leedahay noloshaan maarkino xagee u socotaa soo nolosha saas ma ahan nolosha waxay tahay choice adaa choice kale maalinku ilaahay aqli ku siiyay oo adduunka ku keenay oo waxa kala garanaysid choice kaaga adaa gacanta ku wadatid wala qofan ku heen hadaa marqan gaartahay waalid aan ku heenin waana ogtaa waxa u baahan tahay waxa adduunka ka rabtay aakhiradaada adoo u shaqeysanayo wixii wadada aakhiradaada u mari lahayd wadada adduunkaaga ku manaafacaadsan lahayd gacantaada ku jirtaa qof kale ibn aadan ha saarin dusha ka saarin midda labaad waxa aan markasta aan la yaabaa arkay si daacada hadaa u hadlo dad waxa jiro oo maasha Allah intelligent ah oo aqli badan intelligent waxaan ka wadaa dadka yani dareemo ani kama wada dadkan waxa isticmaalaan intelligent qof qalin iyo buug qaato qof IQ-giisa dheeriha waa ka soo horjeeda taas ma ahan intelligent qof kasto ibn aadan ah qof kasto ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nafgaliyo oo aqli leh intelligent ah ma ahan ina wax qori karto qof aan wax qori kara intelligent ah intelligentnimada ma aha qalin iyo buug laakiin intelligentnimada waxa waa qofka emotional leh oo wax fahmayo emotional ahaan oo yani qof markuu qof uu ogyahay nafsadiisa soo shaqeyso taasa ah qof waxa laga yaabaa inuu baadiye maanta ku nool yahay oo laakiin qalin iyo buugna uusan qaadanin oo wax walbana adduunka wax walba yani haduu meel kasta rabo inuu wax ka soo qabsado strategies keenayo marka ani tan westernka waa ka soo horjeeda intelligentigooda laakiin dadkaasan ku sheegaya oo wax walba sameyn karo meel kasta ka boodi karo oo maanta noloshooda dib u dhigay oo rabo inuu qof kale raali geliyo nafsadiisu ku ciyaaray qofkaas waa ka xumaa wallahi qofkaas nafsadiisu aad ugu ciyaaray sababtu ugu ciyaaray waxay tahay wuxuu kow ka dhigay horta kow inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala raali geliyo waay ilaahayna wuxuu ka ogyahay qalbigaaga waxa ku jiro wuxuu ogyahay wixii aad rabtid hadii ka waran shirk hatta dambiga ku gelaysaa hadaa saxsanahay hadaa khaldanahay ii sheega dambiga ku gelaysaa sababta ilaahay adiga communication marka isla sameynaysiin ilaahay wax walba noo ogay right now aydan la hadla qalbigayga waxa ku jira Allah bas og adinkan Allah og hadii ka waran gurigaada ku nooshahay oo qalbiga wax ka rabtid aad tahay qof karti leh ma sha Allah oo wax sameysan karo qof aan karti leh adduunka ma jiro ibn aadana oo wixii aad rabtid laakiin qofka aad ku la nooshahay ama qofka asxaab la tahay أكون رالي قلني سد ماشي ما أنت فديد إسلا هاي قف كاس إلي يا بايو مرة قف كاس إنه سئي أركو لكن وحروا قف كاس وحماج جرينا إنا سميه بس قف كاس وحرالي كيا إنا سميه قف كاس وحسق مناسبة دي سكوفي عنو كل جين مناسبة ده نسكو ميد ما نكون كرتو أذيك ميد على هاي قف كاس ملك لوليه هاي سو أذيك إنا تادي مركا أوجاتيد إلهي تلسارو كل دخا قف كاس صوب عن هؤوحين لكن هدا أوحيس قف كاس إنت جدا أويس على هذا قف كان أنت إيدي قف كان الروا إن الرالي قلي قف كان
dambiyaa gelaysaa marka walaalayaalow qof inta dhageysanayso wallahi waxaa u arkaa in dad fiican tihiin ilaahay khayr ha idin siiyo dadaalka meesha ka bilaabo adinkaa dadka dhiirigelin karo walaalaha adinkaa ma aragta meesha iska qaadi karo waxaa idin dhihi lahaa qof noloshaada ha ku xirin qofna ha ku raaligelinin wixii nafsadaada ee rabta aad samayn lahayd only allah subxaanahu watacaala ku raaligeli meesha noloshaada ee mari lahayd allahana kaa og wadnahaaga qalbigaaga og laakiin dadaalkeedii sameey qofkaasna maskaxdaada ka saar negativekana iska ilaali negativeka dumarkeena u badanna raggana way leeyihiin waxaa waaye in qofka kale aa u aragtid inuu qof kaa sareeya yahay ama aa istiraahdid qofkan intuu iga sareen lahaa aan hadal negative ah aan ka qaabilo qofkan aan isdhaho qof xun waaye adigii markii waxba iskumaadan tarin adigii nafsadaadii wuxuu kugu soo noqdeen maskaxdaadii kugu soo laalaabatay dada intaasoo sano saas ugu soo laalaabanayso laakiin haddaysa haddan right now aad iska bixinin oo aad tiraadid negative dambe no nolosheedana hore un wadaaya waxaana diyaar u ah inaan nolosheeda kobciyo in dadka agagaarkayga joogo aan tusiyo jeceyl inaan tusiyo wanaag inaan tusiyo maaragtay inay aniga tusaale iga qaataan inaa ilmaha la noole ama qof kastoo ila noolna aan wanaag indhihiisa ka arkin markaa wejigooda fiiriyo wax wanaagsan keliya aan ka arkin xumaan waana mahadsantiin walaalayaal qof wanaagsan amiin okay sahra ahmed englishka meeqa lagu baran karaa waqti limit ma lahan adiga waay adiga kugu xiran tahay adiga nafsadaada isweydii hadda su-aasha iga jawaab waay aa u rabtaa kow inaa englishka aad baratid kow inaad taas ogaatid waa qalin iyo buug soo qaado ku qor waxaad tiraahdaa muxuu ii tarayaa kow inaan barto waxaa kuu soo baxaysa natiija kuu soo baxaysa natiijadaas waa natiijada ku riixayso aa meel ku gaari kartid waxaa kuu soo baxaysa for example ani waayaa u rabta inaan ani nafsadeeda kasoo qaadaya maxaa u rabay luqadda inaan barto sababtoo ah wadanka kuma dhalan ani wadan waxaan ka imaaday soomaaliya kenya ka soo maray halkaana imaaday anoo caqli leh anoo qof weynaan soo galay maxaa igu kalif inaad barto reason haddaa u samaysid wax walbo aa qabanaysid maskaxdaada yub galaysaa waxaa kugu xirnaanayso goolkaas inaad gaartid marka haddii ay tahay ay kugu xiran tahay in nafsadaada aa ku anfacdid ku qormeel waxaad tiraahdaa reasonkaasaan u rabaa wax yar ku dhaji darbiga ku dhajiso markasta indhahaa ku fiiri maxaa u rabaa inaa wax barto inaa ilmahayga anfaco maxaa rabaa aniga inaa nafsadeeda is anfaco in aniga maanta dhakhtar qofna iiga turjumin in aniga maanta aan wax walbo aan nolosha aan rabo aan qabsan karo taas haddaa niyadaada gelisid waxa la dhaho waxaa jiro emotional attachment taas haddii kugula xirmaato waxaa sheegaysaa 2 bilood 3 bilood horaa kaga baranaysaa Yes, effort. Yusuf Farah. Effort and recognize your life. Yes, effort. waxaa jira waay la dhaho waaygaasna wax yaraan kasoo taabtay si fiican uma taabanin qof kasta oo adinka inaga mid ah oo casharkan soo galo waxaa rabaa hadduu ilaahay idmo in aa ogaatiin inaa qoratid waay ad maaragtay maxay tahay waxa reasonka usoo gashay intaa u rabtid reasonka programka u sameynaysid oo aad maaragtay oo kaga soo mid noqotay maxay yihiin maxay tahay waxa aad rabtid noloshaada inaad ka gaartid meel ku qoro marka meel ku qoratid noloshaada easy ku noqonaysa wax walbana ama waxa laga yaabaa inaad leedahay personal why ama professional why personal why-gaas waxa kamid ah in familkaaga walaalaha ciyaalkaaga in meel aad gaarsiisid in nafsadaada kura u qaadid in waalidkaaga aad xajka geyn kartid waxyaalo badan ku jiro in intaas hadaa qoratid mid kalena oo umada waxa u qaban lahaydna aad gooni u qoratid labadaba markasta wax kasta ka soo horbaxdo aad tiraahdid waxa u noolahay adduunkan purpose uma nooli yani qof walba waa inuu role ka ciyaaro adduunka aakhiradiisana u shaqeysto marka taasaan u samaysanahay tanna waa tii personal labadooda is ag dhigtid okay thanks but can you tell us your point Hassan haddii hore aad ula soconin waxa laga yaabaa in qof hadda gadaal ka soo gashaa tahay waxa ka hadlayna mindset mana ku soo celin karo walaal way tiro badan tahay waxaa ka helaysaa informationka oo dhan for my Somali community hadhowna waxaa commentiga soo gelin doonaa haddii walaalaha inta ku jiro ee qolkayga soo galaana meesha ku soo qor maxaa la dhahaa si aa ula socotid waxaan ka wado intaana casharka dhameenin waxaa laga yaabaa inaa meelo kala duwan ka soo gashaan
وما عبد السلام وما هتسنتهاي وما سنتهاي إنك استو كل جين أود آخرين كرين واسكت ده أنا آخريو آد بقى ما سنتهين وقتي قيمها إن إذا لقي بصدق أنا إيجا سوق قضي ولا عليه مسلمين تين دمانتين ما رك تقفل الله إنه يوحو فيريا intentionك وحلاقي وادد إن هي أركان إدهان قف دمر واي محي أسوق الشيء محي يعني أنتوا جهل لسه ما أهن إنك يعني واحد ريزن كأسوق الله بقى سبحانه وتعالى إلهي بقلبي يجوج إن أنا الرب ودتك ولا عليه إسلامك دتك ولا عليه مسلمين تصومالي ده إن هرمر جارن إن وحق بصدان إن وحن أبرت motivational speaking كان أما coach أما self development كو إن نفس الدين كو أنفعه nafsadda waa markaas inay ka bilaabato number 1 nafsadaada hadaad anficin nafsadaada secure ah ka dhigina qof kale oo ku dhow caawin kartid ama wax u qaban kartid ma jirto wala ilmahaaga diyaaradda marka koreysid u fiirso maxaa lagu dhahaa hadii wax oo dhibaato ama wax dhici rabo adiga horta gasho kan maskiga ka bacdi ilmahaaga u gali ama qofka ku dhow marka nafsadaada waa inaad koow ka dhigtid laba markaas dadka ku dhow anfacdid marka reasonka u sameeyay taas ay ahayd inkastoo asku meel ka soo gasheen waxa rabaa dadka London ka soo galaayo ama kan anywhere ka soo galaayo ma London ahaan hadalka ay qaldame in ay soo qoraan message hadda ka horna yani meesha waa ku sheegay laakiin announcement kama sameenin in ay soo qoraan oo aan ma arkino workshop waxa jiro oo training ah oo free ah oo hal maalin ah nafsadooda inta waqtigooda halkaas maalin ka soo qaataan aan u diyaariyay dad oo ayagana training maaragtay oo aan i caawiyo oo dadkaas la sameeyo trainingkaas maaragtay oo la imaado labo meel kasto ka soo gashaanba aniga nafsad ahaanteyda Safiya magacayga hada hore oo dadkaan hore aqooni Safiya Faarax Maxamed waan ku shaqeystaa coaching oo 1-to-1 ah oo maaragtay qofkii raba inuu noloshiisa businesskiisa oo hore u mariyo iyo qofkii raba inuu waxbarashadiisa oo hore u mariyo labada waa ku shaqeystaa dadka kalena maaragtay oo kuwa hadda speaking ka meel hadda iga yeertaan oo Englishka ayagana waa tagaa hadii workshop u baahan yihiin waa sameeyaa laakiin dadka Soomaalida walaalay hal maalin aan rabay oo London ku nool halkaas mar trainingkaas hadii aan baro ama dadkaas expert kan way ila asxaaban hay diyaar ila yihiin waa soo casumi karaa way training way siin karaan si markaas ummadeena u sii hormarno taas midda koowaad midda labaad hadalkan hadda in la hadla wax laga yaabo in wax badan uu kor inay qaadin ama xoogaha uu idin anfaco qofkii rabo 1-to-1 course aan furay oo 10 qof kaliya qaadanaya 10kaas qof waa in la shaqeeyo 6 bilood oo 1-to-1 ah over the phone telefoonka ina aan markino oo la waxay 10kaas qofkii diyaar u ah bishiiba hal mar qaataa qofkii diyaar u ah oo rabo contactigayga ku qoraya insha Allah numberkayga 10kaas qof ay soo wacdaan oo qof ah iyo 6 qof kaliya raadinaya ayagana saasoo kale 6daas qof inaan group ka dhigo oo aan ku daro markino communitygayga aan ku daro 6daasna marka aan toos ula shaqeeyo laga yaabo ina wadamo kala joogta xataa isoo kay zoom call jiro zoomkaas aan isugu imaano ana yani u sheegi doono barnaamijkiisa u socon doono 6 qof barnaamijkooda wuxuu socon doonaa 3 bilood kaliya 3daas bilood okay marka qofkii raba inuu isqoro 10 qof kaliya waayo oo 1-to-1 ka oo yani oo consultation ah iyo maxaa la dhahaa 6 qof 6daasna waa isku group I don't mind dumar iyo rag waa markino waa maxaa la dhahaa shaqadeeda ah waa isa soo qori kartiin marka qofkii u baahan hadii uu booskana ka buuxsamo si kala ha u arkin bisha kala saasoo kala dad kala saasoo kala qaata bisha ku xigto waana mahadsantihiin waxaan filaa inaysan wax su'aal jirin hadii maaragtay okay dib male message-ka ii soo qor si aan haddaan ka qoranaya right now because waqti yar waa message-ka iigu soo qor messenger-ka qofkii London ku noolna waxa ku dhigi lahaa ka faa'iideyso maxaa la dhahaa Janice-kan ka faa'iideyso waana Janice aad u weyn adigana ku anfacaya dadkaagina anfacaya haduu Ilaahay idmo marka walaalayaal waa mahadsantihiin hadii wax qalad u iga dhacay iska kaafiya maraba ina markino adinko inay cafina meesha ka baxo hadii aan qaldamayna ma aragta Allah subhanahu wa ta'ala ha ii gargaar han ii cafiyo adinkana sidoo kale aadan u mahadsantihiin waxa idin wada rajeynaa khair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh